waxaa dadka badankiis ka joojiya maaha fashilka laftiisa waa cabsida fashilka qofka aan weligii isku dayin inuu guuldarayso fashilmo waxaa laga yaabaa inuusan weligiis gaarin guul weyn su-aasha muhiimka ahi ma aha ma fashilmi doonaa su-aashu waa maxaan ka baran doonaa haddii aan fashilmo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhawaada goofgala podcast magacayga waa ciid yunis maanta waxaynu ka hadlaynaa mowduuc ay la kulmaan ardayda ganacsadada shaqaalaha run ahaantii iyo qof kasta oo leh riyo waa maxay dadku qaar uga baqdaan fashilka waxaa jira dad leh hibo aqoon iyo karti laakiin weligood ma bilaabin mashruucooga ma cusan shaqada ay doonayaan ma hadlaan ma qoraan buugga ay rabaan ma bilaabaan ganacsiga sababtu ma aha karti la'aan sababtu waa cabsida fashilka maanta waxaynu fahmi doonaa sababta cabsida ay u jirto iyo sida run ahaantii looga adkaado cabsida waa maxay fashil marka hore aan saxno fahanka dad badan waxay u arkaan fashilka inuu yahay dhammaadka safarka laakiin xaqiiqadu waxay tahay fashilku waa qayb ka mid a geedi socodka guusha markuu ilmuhu socodka baranayo dhowr jeer ayuu dhacaa ma waxaan dhihi karnaa waa fashil waa maya waxaan ognahay inuu wax baranayo sidaas oo kale noloshuna waa sidaa oo qofku oo ku celceliyo haddaba maxaa dadka ay ka dhigan tahay inay ka baqdaan fashilku sababuhu dadka ay uga baqdaan fashilka kow cabsida laga qabo dhaleecaynta dad badan waxay ka baqdaan waxa dadka kale ay ka odhan doonaan laakiin mudane marow xusuusnow dadku way hali doonaan haddii aad guuldaraysato wayna hali doonaan haddii aad guuldaraysato taa macnaheedu waxa weeye markasti dadku way ku dhaleecayn doonaan ee ha ka dhigin fikriga ama waxaa loo yaqaano ra'yiga dadka kale inay ku jaangooyaan noloshaada laba kalsooni darro qaar waxay is yidhaahdaan ma awoodo waa layma dooran waa layga fiican yahay laakiin qof kasta oo maanta runtii guulaystay wuxuu ahaa mar bilow qof kastood ergeyso horumar sameeyey mar wuxuu ahaa bilow u ahaa saddex rabitaanka qumanaanta qaar waxay sugaan wakhtiga ugu habboon waxay rabaan inay wax walba quman yihiin laakiin nolosha sidaas ma aha horumarku wuxuu ku muhiimsan yahay qumanaanta taariikhdu waxay noo sheegaysaa run ahaantii guushu waxay ka dhalataa run ahaantii ay ka dhalataa dulqaad marka aad akhrido taariikhdii dadkii guulaystay waxaad arkaysaa run ahaantii hal wax oy ka siman yihiin marar badan inay run ahaantii ay isku dayeen ganacsado badan oo maanta ganacsigiisu run ahaantii uu ahaa soo ganacsado badan bilaabayey in badan bay run ahaantii ay ku guuldaraysteen qoraal badan oo buga qoray bugagii u horreeyey waa lagu diiday saynisyaal badan waxay sameeyeen boqolaal tijaabo ka hor intaynay run ahaantii guuldaraysan ay guul samayn guushu ma timaado sababta oo qofku run ahaantii weligiis ma dhicin waxay run ahaantii timaadaa sababta marka qof kastoo run ahaantii uu dhaco ayuu run ahaantii haddana istaagaa qof weli mar dambe waa inaad bartid qofku suu u istaagi karo fashil laakiin istaag diintu maxay ka qabtaa arrinta aragtida islaamka wuxuu ina barayaa inaan dadaalno kadibna allah tala saarano allah wuxuu qur-aanka ku yidhi markaad ahaantii go'aansataan tala saarta allah muslimku ma quusto uu dadaalaa uu barya allah kadibna wuxuu aqbalaa natiijada haddii aad runtii aad guulaysato u mahadnaq allah haddii aad guuldaraysato sabir cashar runtii ka qaado nabigeena maxamed sala allahu calayhi wasalam wuxuu ina baray in mu'minka xoogan uu ka khayr badan yahay mu'minka tabarta yar
isla markaana aan la quusan. Haddaba, sidee loo gudbaa run ahaantii sidee looga gudbaa cabsida fashilka? 5 tallaabo oo muhiim ah. 1. Bilow inkastoo aad cabsi dareemayso. Geesinimadu maaha cabsi la'aan, waa inaad tallaabo qaadaa adigoo cabsanaya. Baro khaladaadkaaga. Khaladaad kasta oo wuxuu run ahaantii ku siinayaa cashar muhiima ayaad ka baranaysaa noloshaada. Jooji isbarbardhigga aad dadka isbarbardhigaysid. Tartanka ugu muhiimsani waa kan run ahaantii aad la gasho naftaada. Ku xeer run ahaantii dad ku dhiirigelinaya. Saaxiibtinimada wanaagsan run ahaantii waxay kordhisaa kalsoonida. Ku kalsoonow Allah. Dadaalkaaga samee kadibna natiijadaada Allah u daa. Haddaba, fariinta ugu muhiimsan ee dhalinyarada aan siin lahaa, haddii aad rabto inaad noqoto ganacsade, bilow. Haddii aad rabto inaad qorto buug, bilow. Haddii aad rabto inaad barato luqad, bilow. Ha sugin maalinta aad dareemayso inay diyaar tahay, perfect tahay. Inta badan dadku guuleysta waxay diyaar noqdaan iyagoo ku jira jidka iyo halganka ay ku socdaan. Gunaanadkii mawduuceenna, saaxiibayaal, fashilku maaha cadowgaaga. Cadowga dhabta ahi waa cabsida. Ka hor intaana istaagta aad run ahaantii wax isku dayso. Ha ka baqanin inaad dhacdo. Ha ka baqanin inaad weligaa isku daydo. Xusuusnow mudane muruw. Guushu maaha inaad weligaa dhicin. Guushu waa inaad mar kasta dib u istaagto. Aad ku istaagto run ahaantii lugahaaga. Allah hana siiyo geesinimo, sabir, tawakkul iyo qalbi run ahaantii xuska run ahaantii naxariis ku weyn tahay. Aamiin. Waad mahadsantihiin si fiican u dhegeysatiin Gofgala Podcast. Haddii uu podcastkan ku anfacay, like saar si run ahaantii aad ula wadaagto run ahaantii dad kale. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.